يعلو جناحي إذا رويت قلبي، يسمو نجاحي إذا نسجت دربي، فدمت خير غارس يا أجمل المدارس، فدمت خير غارس. أزهو 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 وأفخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام، ما أنتم waxaan u balansannahay xaflad ugu horeysay ee laga qabtay iskuulka Somali Future, kana mid ah xafladaha la qaban doono insha Allah taala. maanta Ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala, mar waliba mahad iskale. Ilaahay maanta sidaa noo soo suurtageliyey waqtiyadii jaaniska iyo fursadihii aan soo haysanay, maanta halkaan aan ugu wada soo kulannay. Allahaasaa mahad iskale, 1,000 jeer isagaa u mahad celinaynaa. mar kale waxaan u mahad celinayaa mas-uulkii tartankii hore dhacay 2023-2024 Ustaad Asad Saalim Shariif Cumar. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa macallimiinta qiimaha badan, Ustaad Maxamed Nuur Maxamed Buqaari, Ustaadkan Ustaad Zaynaba, iyo macallimiinta kale ee ka soo qayb qaadatay, iyo macallinka hadda nala joogo Ustaad Maxamed Cabdiqaadir Maxamed Nuun. asna aadan uga mahad celinaya. waxaan kaloo u mahad celinayaa ardadii juhdiga iyo dadaalka ku soo bixisay in tartanka ay ku noqdaan kooxda ugu horeysay ee ku guuleysatay tartan aqooneedka laga qabtay Somali Future. ayagan aadan uga mahad celinaya. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa ardada ayagana juhdigooda soo bixiyey laakiin nasiibku uu saacidi waayey ee tartanka ku guuleysan waayey. marka waxaan maanta u balansannahay marka in aan xafladan aan guddoonsiino tartamayaasha 2023-2024 oo ka kooban 7 arday, uuna liidarka ka yahay Cabdulaahi Maxamuud Cumar. waxaan idin leeyahay dhegaysi wacan. macallimiintana waxaan leeyahay aada u mahadsantihiin, dhammaantiina aada u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maamuleena aad iyo aad u mahadsan yahay. haddana furfuridda ayaan bilaabaynaa qur-aanka kariimka. waxaanu furfuraya walaalkiina Cabdirasaaq. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. aad iyo aad u mahadsan yahay walaalkiina Cabdirasaaq oo soo jeeday qur-aanka kariimka. haddana waxaa noogu xig xuseen cabdicasiis oo soo jeedin doono qur-aanka tafsiirka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مقع الله حسين عبدي كسعود فسك أحد سجيد تفسير. بسم الله إله مقع يسوق بالله وإنا الرحمن ألا نحرست قود نحرست الرحيم ألا نحرست قال نحرست. قل إنه محمد وعود وعمل قال يا برب الناس دتك ربي يودا ملك الناس دتك بقر كودا إله الناس دتك إله يودا من شر كي شرتيسا كمان قال يا الوسواس وسواسين بدنا ألقى الناس نقشد بدنا الذي كي يوسوس وسواسنا في صدور الناس دتك لا بيودا من الجنة جني كميت والناس دتك كميت haddana waxaa noogu xig xadiis oo soo jeedin doono walaalkiina Cusmaan. أولا السلام عليكم. أنا مقعك بلا عثمان سنوال كان سوجين دون حديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال اجتنبوا الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحسنات الغافلات. aad iyo aad u mahadsan yahay. haddana waxaa noogu xig nashiido oo soo jeedin doonto walaashiina Fardooso. أنا magacayga Firdaws على halkaan soo jeedo nashiido. xijaabkaan oo arkaya maxaa tarxadigu xambaaray adoo xubnihiyo jikaaga xariirku asturi karaya maxaa xaadiyo tintaada
xishood alla kugu baneeyay markaad xiran tahay xijaabka waxaad tahay xuural caynta dunida laga dhigay xariiste ku xaragoo noloshaada. aad iyo aad u mahadsantahay. hadda waxaa nooga xig nebi ammaan oo noo soo jeedin doonto sumaya cabduqaadir ismaaciil. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من اسمه قائد إسماعيل قاران فصل كشنات دحني سجيد وانا نشيدو نو أمان رسولك الله سادي ريدا من أدونك إذي أتنكو آميني نبي ورمي عدي ومدو ناوي رسالة داكو سيدي محمد سيد كورني وانت فاتو محمد سيد كورني وانت فاتو من الفريد مني نوعا وريتو. aad iyo aad u mahadsantahay. haddan waxaa nooga xig lagjar oo noo soo jeedin doonaan walaalihina ayuub iyo zikariya. walaalkan zikriya halkan kasoo jeedaan lagjar. thanks allah ugu horanta allah ayaa mahad iskale who gives me eyes to see, kaasoo isiiyey indhaan wax ku arko, ears to hear, dhagaan wax ku maqlo, hands to eat, gacmo wax aan ku cuno, legs to walk, lugo aan ku socdo, and it is very hard to classify right or wrong. iyo maskax aan ku kala saaro wax sax iyo wax qaldan. Today I am very happy to stand in front of the students. maanta aad ayaan u faraxsanahay in aan soo istaago ardayda hortooda, Although it is my first time to be a topic believer. inkasta ay tahay waqtigii ugu horeeyay aan noqdo mawduuc soo jeediye. However, the case I am that I have stood here. si kasta ha ahaatee ujeedada aan halkan soo istaagnay So I just a topic about teachers. waa inaan soo jeednaa mawduuc ku saabsan macallimiinta. Teacher is one who shall let the light macallinku waa midka kuu ifiya, of your class eyes indhahana kuu fura, and take you out kaana soo saara godmug, kaana soo saara of deep dark hole which you can get out of it. god dheer oo mugdi ah aanan ka soo bixi karin. So you must be polite to your teachers. sidaas daraaddeed waxaa waajib ku ah inaad ixtiraamka macalinkaaga. Every one of your classmates are an eyesight of character. arday walba oo nagu fasala waa inuu akhlaaq lahaadaa. Before I conclude this beautiful lecture, intaan gabagabaynin lagjartaan qurux badan is prepared by teacher Nuna. waxaa soo diyaariyay macalinkeena Nuuna. I am said goodbye. anigoo idin dhahayo maxsalaam. aad iyo aad ay u mahadsan yihiin. haddan waxaa nooga xig cabdullaahi oo noo soo jeedin doona dhiirgelin. أولا السلام عليكم. أنا مجيء عبد الله محمود وأنا سجلين دارا طبيعي ويا دنيا درجة مستهلنة دلال أو صيبدي طريقة قصة وتدقن هؤلاء لهن دلال dadka dhisaysa haday maanta duntana ay sooran wada minalkii adig ku daarnaayo dadaal oo kusii naas baa ka damqaday wuxuu dadaal ku gabee dayaxa oo kugu muuqda haday daruuro qaryaan ha ka dib dhicin hankaaga dadaal oo kusii soco diraacdo rajaynaya haday abaari ku diirto baruu dirir hooraya dalaga hore usii aasoo dadaal oo kusii soco kulley rajo waay kan idaadihii kuma tiraadee karti iyo dadaal uunbaa lagu hantaa dariiqeedana lagu hantaa daruuf iyo marxaladana darteed baa loo maraa dadaal oo kusii soco aad iyo aad u mahadsan. haddan waxaan kusoo dhaweynaynaa ustaadkeena ustaad maxamed nuur maxamed bukhaari. awlan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigoo magacayga maxamed nuur maxamed kun magaca dheer bukhaari oo halkan ka dhiirigelinayo ardaydii sanad dugsiyeedkii hore gudbeen kuwa soo socdaana ka dhiirigelinayo si ay ayagana kaalin weyn ugu qaataan sanadka 2024-2025. marka arday walba waxaa looga baahan yahay dadaal. kan hadda maanta oo diyaar ku ah bartaan maanta xafladan asiga dartiis loo dhigay si loo abaalmariyo wuxuu kusoo gaaray dadaal.
dadaal la'aan wax soconaa ma jiro adduunyadan wax kasto waa dadaal hadda wax walbo la yaqaan ilaah u sareeyo asaan u weyn ilaahayna markii la weydiiyay nabi muuse hadda kor oo yiri ilaahayo wiligaaga muhurdo yiri muhurdi wuxuu yiri maya maxaa hurdi waas yiri ilaahay wuxuu jawaab ka dhigay sababta uu hurdi waayay wuxuu yiri inni akhaafu an taqa samaawaat ala al-ard yiri in waxa ka cabsado yiri dhulalka iyo cirarka isku dumaan yiri cirarka ay soo dhacaan oo dhulka ay ku dumaan ilaahay intaas waxay ka tahay dadaal ilaahay intaas waxay ka tahay dadaal marka qof walbo ilaahaygaaga iyo nabigaaga iyo shacabkii adag ka hore hortaan noolaayeen wax walba ay sameeyeen waxay ku sameeyeen dadaalku waa lama huraan yaa maansadii yareed oo Cabdullaahi noo soo jeedinay dadaalo hor u socod marka dadaalku waa shay qaali qof kasto ha dadaal la'aan wax soconaa ma jiro khudbadeen iyo hadalkeena bartaas ku soo koob salaamu alaykum aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haddana waxaa nooga xig maama unu soo jeedin doonto Farxi Cabdullaahi Muxdiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قام معي فرحي عبد الله والكني سجينا مهما أرجو كل ما أديكم أسمع عن قعم عن أيضا تفاعلنا حشو أمانك وجورك بالا مودا بلانترو ودين درو أصلاً دادنا حنوي سوغان unu soo jeedin doonto Guru Nuur Muuse أولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قام معي Guru Nuur كان كسو جدون سوغان calankaagu waa hibo sharafkugu hagoogaane ciiddaadu waa hodan aad ku haqabeeshe waa haleeladiino horweynku irmaano aad u hiilanayseen haybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo wana lama huraane hagalii wax ugu qabo wana lama huraane hagalii wax ugu qabo hanfiyo kulayliyo baraf male dhulkeenu yaynaga halaynay Soomaaliyey hoy hoy hoodalaweya deegaankiisa hoodanka loo wada hamuume aad iyo aad u mahadsantahay haddana waxaa ku xig ustaadkeena ustaad Nuur ayaa kusoo dhaweynaya أولاً وحن سلام يا ماموكا معلمينتا يا أرضية قيمة بدن وحنكو سلام يا سلامة سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام أولاً إله يا ماسكلة مانتا نوسور جليه حفظان قروح بدن ودياري سكولكا سومالي فيوجر iyo maamulkeeda una diyaariyay ardayda gaar ahaan kuwa maanta ka muuqda boorkan aad u jeedaan waxa kaliya maanta loo tartamaya waxay tahay aqoonta tartanka waxa sababta loo qabta kaliya waxay tahay in ardayga waxa fasalka uu ku bartay uu ku soo bandhigi karo halkan macallimiintiisana ka sixi karaan ayna ka khaldi karaan marka waxaa leenahay marka ardayda sanadka hore ee guuleystayna kuwa sanadkan soo socdo macalinka igu horeeyay wuxuu idinku baraarujiyay inaad dadaashaan dadaalkana waxaad la sii meel dhigtaan wax akhrin dadaalka luu sheegay dadaal ma aan isku socaay waa inaad marka ugu horeyso aad wax akhrisaa xilliyada ugu fiican aad wax akhrinaysaan waa inay noqotaa salaad subax markaad soo dukataan sidoo kale maskaxda aad ay fresh u tahay qofka ardayga ah waxa loo talagalay salaada subax inuu wax akhriyo maskaxda aad ay u fiican tahay markaas inuu wax akhrisid erayga akhawatid way qaban doontaa maskaxda sidoo kale habeenkii hadda jaanis helis iyo inta badan maalintii hadda jaanis helis waa inuu wax akhrisaa laakiin xilli uu fiican oo ku sheegay waa salaada subax anigoo rabin inaan ku sii dheeraado meeshaan waxaan ku baraarujinayaa ardayda maanta oo madax u yahay ustaadka أستاذ أسد سالم شريف أو مدحوية كوجول استترتن كوحالة همبليو هو عن خادمنا وحالة ساد أخذان وإن الدلاشان سند كهدو بلاوي هاي عدة هذا مانتا أو كل برجال ودي سند كهدو بلاوي ترتن كهدو بلاونا
ardayda waxaa ku dhiirigelinayaa qof walbo group walbo ka tirsan inay meel fiican ay rajeyso taasna sabab u tahay inay wax akhriso run ahaantii marka maanta waa maalin hambalyo iyo reereyn waa maalin ardaydeenu aan leenahay waa idinla faraxsannahay sidoo kale waalidiintiina ayaa idinla faraxsan marka heer ayaa soo gaarteen heerka halkaa kasii wata oo dadaal muujiya anigoo rabin marka inaan wax badan aan sii sheego waa maamaha ayaa jirto ingiriis ah leh education aqoonta shows you waxay ku tusay the right way wadada saxan and wrong way wadada khaldan marka aqoonta waa meesha aad ku baranayso wadadan inay mugdi tahay iyo inay wadadan iftiin tahay marka dhammaantiin waxbarashadeennana aan ku dadaalno waxaan idin leeyahay marka salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahadsan yahay haddana waxaa nooga xig iskuul ammaan oo noo soo jeedin doonaan walaalihiina maryan iyo sacdiyo barakaatu anigoo ah magacaysa sacdiyo muuse iyo walaasheeda maryan nuur kana socda iskuulka Soomaali Future Baran Secondary School gaar ahaan fasalka lixaad oo halkan kasoo jeedo ama amaanta soo ku saabsan iskuulka Soomaali Future hidiyo ardayda Soomaali Future baynu nahay astaanteenu waa taliyo تعليم أنه مهنين وميدان كتلمام له توصالي وحينوغو فيلان توبانها كوبتاغنو أقون تبديد يوشاحات ككونو وقتيغا هدي mudnaantu macalinku waa midaanoo micinaysanayn muraadkiisa siduu yahayna waa midaan matalkeed la heli maamulka Soomaali Future School wuxuu noogu baaqayaa aqoontan baahdayo ka babatay bulshada jahligu waa indhool la'aan cudur weeye aad u daran waa ciil iyo hoog daran aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin haddana waxaa nooga xig gabay oo noo soo jeedin doonta walaasheena maryan axmed maxamed أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يالي دقسي أنيقو مقعيقا مريم أحمد waxaa maanta halkan kusoo jeedi doonaa gabay dulqaad badan hooyo diran dareen badan deemo wacan deeqaysan darajo badan dumarka dunida buumada dabeeye degan rabow ii daadajiyo dacada daa'ima waajiib dadow aamiin ku dara dadaasha oo lay dartay darxama dacsi xanuun diif ii soo muusitaar soo jeedka ugu sii darna diirka yaabee mardume nalkii duniday baktiya markuu dim maalin qura adaa dusha saarta dir daldaloola adeega jira si ay dadka iga garan agoonnimo tii dayacan adaa ay dul laga facay qadaan kuu daalana dayax gaar baadi tiri waxaanu dawaafayaa dadaalka nagu jira abaalkii duruqsanaa kolley ma dawoolaye doorkaad naga geysataan qaamuuska kuduugaya dadnimadaada macaan dunida gaarsiinaya kaldeeqaay hooyo qurux nolosha adigaa dabar haddana waxaa nooga xig tijaab nasiibka noo soo jeedin doonaan walaalihiina mulki iyo xabiibo Alhamdulillahi barakaatu anigoo magacay mulki maxamed iyo walaasheen xabiibo halkan kasoo jeedin doona tijaab nasiibka أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا وفوق زكريا أحمد محمد وأسكو داي دون تجاه نسيبك نمبر لو نشيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد lambar 5 sheeg nabigii ugu horeeyay dhulka loo soo diro نبي محمد عليه السلام jawaabta ka bixi amis saxa soo doon hadiida السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ومقعي رويس معك سجيدا هاي عمال هاي إلا هاي هاي دادي
هويوي أنا أفو بن هويوي أرحدي أفتاي أقنتي أركتي داي تيلقوا من نفتي داي أفو بن هويوي aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin haddana waxaanu wixii ustaadkeena ustaad maxamed nuur maxamed bukhaari oo noo guddoonsiinayo haddii guddoomista asalaamu calaykum aada u mahadsantihiin halkan waxaa noogu qoran guulaystayaasha sharafta leh ilaaha sharaf leh ka sokow rasuulka leh mu'miniinta leh guulaystayaasha leh marka haddaa kasoo tagno waxaa guddoonsiinaynaa ardayda guulaystayaasha ah hadiyad oo ay u tala galeen macallimiinta iskuulka Somali Future ardayga loo wacaa kaligiisa noo imaanayo macalinka wacana hadiyadiisa oo qaadana fadhigiisa ku laabana barnaamijkeena sidaas oo nagu soconaa haddana waxaa soo dhageysiin walaalkeena Cabdullaahi Maxamuud Cumar waxaana hadiyada guddoonsiinayo macalinkeena معلمين تبعين كودا أستاذ عبد القادر أبيكر شيخ علي مؤمن نور أظهر ودم خير غارس يا حضنا وحا هديد القدوسينا فاطمة عبد عيسى وحان القدوسينا بخاري إسلامي أحب الخير للناس فدمت خير غارس يا أجمل ولين waxaa noo socoto tartamayaasha guuleysteen abaalmarintooda haddana waxaa gacan furan noo soo dhaweysiin walaashiinana ah Ruweyda Cusmaan Abuukar oo noo guddoonsiinaya hadiyad ustaadkeena nuune يا أجمل المدارس mahadsanyihiin ardayda la guddoonsiiyey ee macallimiinta guddoonsiiyeen haddana barnaamijkeena waa noo sii socdaa waxaa soo dhaweysiin walaashiina Suusaan Cabdimahad Xuseen oo hadiyada noo guddoonsiinayso macallimadeena macallimad Seynaba aad ayay mahadsan yihiin haddana waxaa noo soo dhaweysiin walaalkeena Nuur Cumar Maxamed dad ayuub kuna magac dheer Sayfullah gacan fur ku soo dhaweey زديني أكثر لكي بالنور ida xamaasidiin waa yareysay waxaa la rabaa ardayga markii loo waco ilaa uu ka imaanay inaad ku soo weydiisiin oo ku soo dhaweysiin haddana waxaa noo soo dhaweysiin walaasheena Farxiya Cabdullaahi Muxyidiin oo hadiyad noo guddoonsiinayo ustaad Cabdiqaadir زديني أكثر guddoonsiinta ay guddoonsiiyeen ardaygeena wanaagsanay haddana ardayga ugu dambeeya ah waxaan gruubka Fardowsa Cali Muuse oo hadiyad noo guddoonsiinayo ustaadkeena ustaadka ahaay guddoomiyaha tartanka sanadka la soo dhaafay ustaad Asad soo dhaweey طموحي ودمت خير aad غارس ay u mahadsantihiin halkaana waxaa noo arkaya barnaamijkii guddoonsiinta hadiyadaha ee ardayda tartamayaasha waxaa jiro hal arday oo la guddoonsiin doono abaalmarin sababta loo guddoonsiinayna waxaanu sheegaya maamulka guud ee iskuulka Somali Future ustaad Cabdiqaadir isla asigaan guddoonsiinayo ardayga magaciisa waxaa la yiraahdaa Guuro Nuur Muuse gacan fur ku soo dhaweey asbaabta ay ku mutaysatay hadiyada waxay ka mid tahay ardada iskuulka Somali Future maalintii la aasaasayay taariikhduna ay ku beegnayd 2 bisha 12aad sanadka 2023 ilaa iyo hadda oo maanta taariikhdu ay marayso 20 bisha 10aad 2024 ardayadu waxay ka mid noqotay ardaydii ama ardayadii ugu horeysay ee iskuulka intuu aasaasan yahay aan wax maqnaansho ah ama xaadirkeeda ay xisooyinka soo xaadiri jirtay uu badnaa waxay kaloo ku mutaysatay in maanta hadiyadan aan siino hadiyad ka qiimo badan way leedahay insha Allah taala waana siin doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo asbaabaha ay ku mutaysatay waxaa ka mid ah juhdiga iyo dadaalka ay waxbarashada gelisay waxaa kaloo ku siinay intay iskuulka dhiganaysay weligeed hal macallin oo macallimiinta iskuulka ka mid ah kama soo gudbinin
ardayadan aqoonteeda waxbarashada liidata kama soo gudbanin. Waxaan rajaynayaa inaad adinkana mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad inaad sacbiska ku soo dhaweyn doontaan insha Allah tacaala. Buur Nuur Muuse iyo arday kaloo la mid ah sidoo kalena ay mudan yihiin magacooda la sheego, laakiin maalintan abaalmarintan ugu talagalna aan siinayno maalintaas aan magacooda sheegi doonaa. Waa ardayda aan ku xisaabtamayno in deegaankan ama guud ahaan dalka ay wax u qaban doonaan, rajadeena ay ku weyn tahay oo ka mid ah diintooda, dalkooda iyo dadkooda inay wax taraan. mar kale mar saddexaad waxaa idin leeyahay soo dhaweyntu waa xaggiinii. Buur Nuur Muuse waxaan leeyahay waan kula dardaarmayaa, guud ahaan dhammaantiin idinkula dardaarmayaa, waa ardayad mudan in lagu daydo, waa ardayad mudan. Gabadhan waxaa la diiwaangeliyey taariikhdu markay ahayd 2 bisha 12 sanadka 2023 la diiwaangeliyey. Ardayadii sagaalaad ee iskuulka Somali Future laga diiwaangeliyey bay noqotay. Saadarteed intaa iskuulku uu soo jirayna weligeed wax maqnaansha akhlaaq dara ah xitaa waxay ku guuleysatay oon aad uga mahadcelinaynaa inay ku dadaashay yacni ilaalinta soo qaadashada uniformka. aadan uga mahadcelinaynaa mar kale waxaan leeyahay aadan mahadsan tahay. kulligiinan waxaan idinku ducaynayaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxbarashada idin fududeeyo. Ilaahayna waxaan idinkaga baryayaa xarafkii aad yacni jeclaysataan inaad barataan inuusan idin dhibi doonin. ku dayda Buur Nuur Muuse mar kale mar saddexaad insha Allah ta'ala. ayadan hadartan waxaan kula dardaarmayaa hadiyadan hadiyad ka qaalisan waad mutaysatay, waad leedahay, xaq baad u leedahay, waana ku guddoonsiin doonaa. adigan inaad maanta meesha aad taagan tahay meel ka wanaagsan aad gaarto aadan kaaga rajaynaynaa. ayada hadartan aan siinaynaa hadiyadeedii. abaalmarintan aad qaadatay dib yaysan kuu dhigin, intaa in ka badan waad mutaysatay, xaqaan u leedahay, waan ku guddoonsiin doonaa. marxaladda aad taagan tahay inaad kasii kormartan waa rajaynayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad ay mahadsan yihiin macalinkii ahaay maamul. waxaa jira marka arday qaar isweydiinaya sababka oo ardaygaas si gooni ah ama gaar ah loo abaalmariyey. haddaa adiga rabto in ardayda si gaar ah usoo dhex baxdo oo macalimiinta adiga si gaar ah tartamayaasha sanadka soo socda markii la abaalmariyo oo adiga si gaar lagu abaalmariyo aa rabto waa inaad sameysaa wax dadka ay sameeyaan wax ka duwan. ma fahantay maano? qof kasto si in loo abaalmariyo oo u helo ha sameeyo wax maanta uu sameynayo wax ka duwan. arday walba naftiisa ku dadaalo, dadaalka waa lama huraan. warkeedna meesha kusoo koobina. wasalaamu calaykum waraxmatullahi aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin. haddana waxaa nooga xig qur-aanka kariimka aynu soo jeedin doona ee ugu dambeeyey walaalkiin Cabdirasaaq. awlan assalaamu calaykum. anigoo magaciisa Saadiq Saciid gaar ahaan fasalka 6 oo ka socdo halkaan ka soo jeedi doono quraan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. kulli waan islaamay ardayda dhigata Somali Future Primary and Secondary School. barnaamijyadeena meesha nooga kiin. خير غارس أزهو 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 20 عاما وأنت في المعالي 20 عاما ولن تخبو الليالي فدمت خير غارس يا أجمل المدارس فدمت خير غارس أزهو أزهو أزهو